iyadoo galab casir liiq tahay abwaanada iyo fanaaniintana ay ku nasanayaan xaafad ku taala magaalada Boorama ayaa waxaa halkaasi la shiday rikood anjal ku duuban yahay gabadh ayaa ka heesaysay rikoodkaasi gabadha codkeeda ayaa wuxuu yahay cod samawaadka laga maqlayay shimbirowna ay dhageysanayeen cod waxay lahayd naxariis leh oo nafaxaadka ka soo baxaya aad is leedahay wadnahaada ayuu gilgilayaa sidaasi muuqaalka u eg ayuu codkeedii sida fallaadhii wuxuu wadnaha kaga dhacay abwaankii weynaa Maxamed Cali Kaariye jacayl halhaleel ah ayuu si indha la'aan ah cod kaga qaaday gabadha rikoodka ka heesaysa waxay ahayd fanaanadeena weyn ee codka dahabiga leh oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu qiimaha iyo qaayaha badan ee Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal abwaanka ayaa isagu waxa uu galay fikir aad u fog isagoo ka dhaxbaxay mawjadihii dadkii la fadhiyay mawjad kale oo aad iyo aad u kacsanna dhaxbartanka ka galay abwaanka ayaa isagoo maqan waxa uu alifay hees aan baxday oo kula hadlayo magaaladii ay joogtay in gabadha fariin laga gaarsiiyo jacayl labana uu qabo hees aan ah uu qaado fanaanka weyn ee codka halaasiga leh Axmed Cali Cigaale ayuu abwaanka sameeyay heestaasi ayaa waxa uu abwaanka kula hadlayaa fanaanada iyo waliba dadka deegaanka Hargeysa uu leeyahay bal hal iga gaarsiiyo fariintan dad Hargeysa soo maray abwaanka ayaa heestaasi waxay qalbigiisa ka soo go'day isagoo mawjado jacayl dhex jibaaxaya gabadha codkeedana ay laabtiisa ka sii dhawaaqayaan mahalkeeda la arkay casarnima muuxiga dad Hargeysa soo maray hadiyadaygu dhiiba mahalkeeda la arkay casarnima muuxiga dad Hargeysa soo maray hadiyadaygu dhiiba markii ugu horeysay ihaleelay caashaqo mahalkan fadhiistaa markii ugu horeysay ihaleelay caashaqo mahalkan fadhiistaa mahaygii jacaylkeeda hammi anigoon qabin haween anigoon rabin heestu iga yeertaa mahaygii jacaylkeeda hammi anigoon qabin haween anigoon rabin heestu iga yeertaa habeenkii taariikhdii maalinkii haddii haatan saacaday tahay iyo markii la yeelaaye isku soo hagaage habeenkii taariikhdii maalinkii haddii haatan saacaday tahay iyo markii la yeelaaye isku soo hagaage
habeengeeyo ku helaaran duxada igaygu raacay mamarkaan awode habsangeeyo ku helaaran duxada igaygu raacay إنها نصيبين يسعد سعيد ربي وهجاتا إنها نصيبين يسعد سعيد ربي وهجاتا مهاريك القعالكان يبشد حسوسو هنقول هاللين بقي نفطو هسيني داي مهاريك القعالكان يبشد حسوسو هنقول هاللين بقي نفطو هسيني داي تاريخ دي مالتي لهدي حتى سعديتها يا مارك لا اسكو سوها مكورو هوبان على اليوم بتاعو بحدود إليه ما هي لاعي كارنتا هورا مكورو هوبان على اليوم بتاعو بحدود إليه هيبا قدقونيو من كاهيغا سارو كاهيرا يا كايما هيبا قدقونيو من كاهيغا سارو كاهيرا يا كايما قربتيو وراركودا اسكو سو هاغاغو عدعدينا هايسا ما هو سيسكا قربتيو وراركودا اسكو هاغاغو عدعدينا هايسا هبيكي تاريخ دي مالتي لهدي حتى سعديتها يا مارك لا اسكو سوها هبيكي
taariikhdii maalintii ilaahadii haatan saacaday tahay iyo markii la helay isku soo hagaagay